Mikhail Brasek wuxuu ahaa 34 jir u dhashay dalka Czech Republic. ninkan ayaa sameeyay arin ugu bah oo adduunku la yaabay markii dambana galaaftay isaga naftiisa. Mikhail Brasek ayaa gurigiisa keensaday cagabarur yar ama arlibah oo ilmo yar ah kaasoo ula dan lahaa inuu rabaaydeesto sida bisada oo kale. libaaxan yar ayuu ninkani gurigiisa keenay, waxa uu siinayay daryeelkii uu baanaa xayawaan yar oo soo koraya. markii dambana cagabarurkii yar ayaa isku bedelay arlibah oo halis ba'an keensan kara. waxa xaafada dad kula nool ninkani in badan ay uga digeen halista ba'an ee libaax weyn lagala kulmi karo, taasoo keeni karta in naf la waayo. balse ninkan ayaa dhagaha ka furaystay digniinihii kaga imanayay dadka kula nool xaafadiisa, oo waxa uu aaminsanaa libaaxan inuu yahay mid rabaayad ah isla markaana wax dhib ah aanan lahayn. ninkan ayaa arrinkan yeelayay isagoo aan ka helin wax fasax ah ama ogolaansho rasmi ah dowladdiisa, isla markaana arrinkan ku sameynayay gurigiisa. waayo wixii la joogaba ninkan ayaa arkii libaaxa ku soo labeeyay gool, isagoo markaa ka dhigay laba libaax. labadan libaax ayaa ninkani waxa uu ku hayay gurigiisa, waxa uu u soo bixinayay daarada gurigiisa si uu ugu socodsiiyo libaaxan jimicsan uu libaaxu ugu helo. dadka xaafada kula nool ayaa marar badan arkay isagoo libaaxa ku dhax lugeysiinaya daarada gurigiisa, waxaana looga digay halista ba'an ee libaax lagala kulmi karo iyo inuu libaaxu yahay dugaag markasta keensan kara khatar iyo dhaawac ba'an oo qof bini'aadan ah oo naftiisa ku waayi karo. balse Mikhail Brasek ayaa ku adkaystay go'aankiisa ah inuu libaaxu yahay mid rabaayad ah, isla markaana uu aaminsan yahay wax dhib ahna aanu u keeni doonin. waayo wixii la joogaba maalmaha ka mid ah Mikhail ayaa libaaxii ugu galay goobtii yareed ee uu sameeyay, taasina waxay noqotay maalintii ugu dambeysay noloshiisa oo uuna dib uga soo noqon. kamarada CCTV-ga ee ugu xirneed meesha ayaa aabihii u ka arkay meydka wiilkiisa oo dhulka yaala. si degdeg ahna aabihii waxa uu la xiriiray booliiskii markay yimaadeenna waxaa la arkay Mikhail inay waa hor nafta ka baxday oo uu u geeriyooday dhaawac ba'an oo libaax ka soo gaaray. halkiina waxaa la isku saaray labadii libaax ee dhimashada geystay. qisadan ayaa ah qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Czech Republic, waxaana tusinaysaa libaax inuu yahay dugaag markasta aan la aamini karin, keensan karana halis ba'an oo qof bini'aadan ah uu naftiisa ku waayi karo. fadlan nagu soo biir kanaalkeena si aad u hesho qisooyin dhab ah iyo sheekooyin xigmad badan oo wax badan aad ka faa'iidi doontid. mahadsanid.